gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan ee injineeriisu ayaa kula yeeshay aqalka dawladda hoose Xamar wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Saara Axmed Jaamac kaas oo ujeedkiisu ahaa xoojinta wada shaqeynta ka dhaxayso wasaaradda iyo gobolka Banaadir iyo sidii la isaga kaashan lahaa horumarinta shaqada waxaana kulankani goobjoog ka ahaa gudoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka Banaadir kulan kadib ayaa mas'uuliyiinta waxa ay kormeereen howlka aqalka dawladda hoose Xamar halkaasi oo lagu diiwaan gelinayay shaqaalaha guud ee gobolka Banaadir iyo dawladda hoose Xamar si loogu sameeyo tirakoob rasmi ah laguna xaqiijinayo tayada shaqaalaha duqa magaalada Muqdisho mudane injineeriisu ayaa warbaahinta u sharxay muhiimadda kulankii uu la qaatay wasiirka iyo sidoo kale tirakoobka lagu sameeyo shaqaalaha waxaan wasiirka wada yeelanay shir dheer oo wada hadlaynay sidii xiriirkii wada shaqeynta wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee dawladda federaalka iyo maamulka gobolka Banaadir uga wada shaqeyn lahaayeen arrimaha shaqo abuurka gaar ahaan dhalinyarada iyo sidii dawladda federaalku nooga saacidi lahayd nidaamkan hagaajinta shaqaalaha oo aan in muddo ah soo wadnay nidaamkan faraka qaadista aad arkayseen iyo diiwaangelinta muddo socotay marka la soo gabagabeeyo waxa noo cadaan doonto shaqaalaha noo jooga ma yihiin shaqaalihii rasmiga ahaa ma ka tirsan yihiin hay'ado kale waa la socotaana horaa loo bilaabay in aan qof shakhsi ah hay'ado kala duwan uusan ka diiwaan gashanaan karin lacagna ka qaadan karin si dadka kale ay fursad u helaan shaqo abuurna loogu sameeyo arrimahaasoo dhan waa arrimo runtii maamul wanaagga isla xisaabtanka qayb ka ah wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Saara Axmed Jaamac ayaa dhankiisa ka hadlay dadaalada ay dawladda federaalka Soomaaliya xooga ku saarayso barnaamijyada la xiriira isla xisaabtanka in qofka dawladda uu shaqeeyana uu xuquuqdiisa helo qofkana ay dawladdu xuquuqdii ka hesho oo uu soo shaqo tago waxaynu ognahay gobolka Banaadir in uu leeyahay shaqaale ballaadhan oo siyaabo kala duwan ugu adeega bulshada ballaadhan ee ku nool magaalada madaxda dalka Soomaaliya ilaa 3 milyan lagu qiyaaso hadiya habeen bay shaqeynayaan iyaga oo mataqaana marka roobdo ilaa saqbarka roob guraya baad arkaysaa biyihii ka dhuraya wadooyinka siyaabo kala duwan iyadoo bulshada ugu adeegaya baad arkaysaa in marka qof walba loo sameeyo ID card iyo nidaam iyo far laga qaado oo xuquuqdiisa uu saa ku helo wixii mugdiya ee soo gali karana meesha laga bixiyo oo aan la helin qof marna u shaqeynaya askartii marna u shaqeynaya gobolkii marna u shaqeynaya shaqaalaha rayidka dadka Soomaaliyeed waa dad hawlkara oo duruufo adag ku shaqeeya khaasadan inta shaqeysa shaqaalaha Soomaaliyeed haddii ay wax naga khaldami karaa waa nidaamku inaga xun Nuur Saciid Haliil warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho